qof wadankii jooga kula soo hadlaya wuxuu ku oranayaa maanta de waxba igu siiyay bal hadda waabaad isxilqaanto waad u dirtay alla wanaagsan sharaf badan alla waa qof wanaagsan qalbi wanaagsanida waligeeba waan ku yaqaanay maalinta dambe haddana ku soo wacaya ma hayaba tiro waxba igu kala kacsan bartaas ay lagu galay awalba waji may lahayn waana qaanay tii horeba ilaahay baa iga soo qaaday waana wax waji ay leedahay ma jirto gacanadayga waan ku yaqaanay waligeedba faa'iido may lahayn haddaba waxaan kuu sheegayaa haddii aad dirtana amaan hilmaysid haddii aadan dirina amaan hilmaysid mar walba qofku xumaabaad ma fahanti waxaan kuu sheegayaa qof kasta oo bilaa-aadani wuxuu dhaliya dhul buu martuu yahay qof bilaa-aadana ha isku dayin inaad qancisid qanci naftaada iyo noloshaada iyo ilmahaaga wax kasta oo lagaa sheegana noloshaada ka wado qofna ha u joojinin amba xumow ama samow ku tabac waxaad dhashay iyo naftaada iyo gurigaaga iyo awlaadaada qof kale wuxuu kaa sheegana haba u joojin haba yaraatee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضيدة سوماليات ميركستو جوجتان aad iyo aad baa idin salaamaya waa walaashiin ubax shide halkaad iga daawanaysaana waa ubax shide official waxa maanta aan ka yaabay oo aad iyo aad aan uga yaabay dadka bilaa-aadanka ah sinaba uga amaan helmaysid haddaad xumaysana ka amaan helmaysid haddaad wanaagsidna ka amaan helmaysid khaasatan horta waxaan kuu sheegayaa adigaaga ay daawanayo adduunkan korkiisa lagu uuman yahay qof bilaa-aadana oo ilaahay abuurtay horta waxa ka sugin ka wax laga sugaa waa allah subxaana wa tacaala teeda labaato qof kastoo bilaa-aadana haddii aad istiraa qanci ama wanaaji ama yuu wax kaa tabana sidan yeel nafsadaada beerta ku gelaysaa qofkan bilaa-aadankiina haddii laguu ogyahay maxaabay ku yeeshaa qofkan bilaa-aadankii kuuma oga waxa laguu ogyahay baaba fiicane waxaadan ogaataa qof kastoo adduunkan korkiisa ku uuman wuxuu dhalay iyo dhul buu martuu yahay taasiyay kaa hoos bixin wuxuu dhalay iyo dhul buu martuu yahay qof baa wax ku weydiinaya tusaalahaan wuxuu ku oranayaa waxaayo waxaasaan u baahanay isla markiiba wixiibaad safoorta waad siisa ammaan baa lagu gelayaa allah waa qof fiican waa qof wanaagsan anigu waan ku aqaanay weligeyba naxariista goobgobi dhashay bay ahayd qof aad u wanaagsan bay ahayd sidan bay ahayd waa markaad wixiis aad u fushid wixii waa lagaa waayay ama maalin kalaa lagu soo wacay waxaad tiri walaal waxbaa igu siiyo waxaas ma awoodi kara ama waxaasaa sidaaya naanu awalba waan aqaano faa'iida iyo wajitoona may lahayn waa taan aqaanayuun tu waji la maaha iyo qaar kaloo badan baa hawada lagu marinayaa marka haddii aad mar walbana aadan siba ku amaan helaynin qof bilaa-aadana hortaa oo ilaahay abuurtay ilaahuun baa dhargiya anigaygaa kula hadlaya dhaho baahi ma dhammaato qof kastoo bilaa-aadana baahi baa hoos taala walow kaana anigana ha ahaatee dadka kalena ee caqliga u saaxiibka ee waxgaradka ah maaha dadkaan la hadlayo weligaa iyo allaha qof bilaa-aadan looma noolaado because bilaa-aadan haddaad istiraahdo bogsiyi wallaahi oo bilaahi inaadan bogsiin karin walow kaana ka kula dhashayna ha ahaadee waxaad arkaysaa qof aadan garanaynin aqoon u lahayn 90kaba ku jiidanaya hadduu doono ku dhaleecaynaya hadduu doono ku xagxaganaya maxaad waxaasoo dhan kaga gudbi kartaa adiga oon u joojin qof bilaa-aadan oo ilaahay abuurtay looma joojiyo san ku neefle inaad ugu sarreysa mar walba naftaada ka soo qaada haddaadi garan adaha kula hadlayaa weligaa iyo allaha adoo adiguba iin leh ood adiguba is og tahay dhaawacyada iyo dhibaatooyinka kugu yaala qof kaloo bilaa-aadana oo noloshiisa iyo horumarkiisa wataa dee adeer dad un baanu ka maqli jirun horumarkaygaa laga xunyay annaguna hadda mabadeen idhaana waa iyadii dadkaasi berigaa wuxuu odhan jiray horumarkan laga xunyay muxuu yahay show waa dad ilaahay yaabuu keenay oo wax arkay dad ilaahay yaabuu keenay oo wax arkay hadalka bilaa-aadamku qofna wax iskaba idhaahdo qof walba wax gubay buu ka hadlaa amaba dhimayuu sheegaa taasaan ogaaday war aad baa idin salaamayaa asxaabteeda aan jeclahay dumarnimo iqaade iska daa